noloshu waa safar qurux badan oo loogu talagalay in si buuxda loo soo dhaweeyo maalin kasta. Waqtiyada adagna ma abuuraan geesiyaal, balse geesiyaashu waxay inta badan soo muuqdaan xilliyada adag. Marnaba ha nicin dadka kaa masiirsan oo ku xushmee masiirkooda, waayo waxay kuu arkaan inaad adigu ka wanaagsan tahay. Ogow geeridaada kadib qofna inta uu qabrigaaga soo istaago ma oran doono waxa uu wadan jiray moobeel qaali ah, ambase waxa uu kiciysan jiray gaari heer sare ah. balse inta god yar lagu geliyo ayaa lagaaga dhaqaaqi doonaa oo waxa ku raacayo waa camalkaaga. Haddaba walaal, inta aad nooshahay ku dadaal inaad raali geliso Allah subhanahu wa ta'ala, aadna shaqaysato camal saalixa. haddii ukunta banaanka laga jabiyo nolosheeda way dhamaataa, haddiise gudaha laga jabiyo nolosheedii way bilaabataa oo waxaa ka soo baxaya digaagad yar. ogow noloshaada iyo wax kasta oo sareeya waxay ka bilowdaan gudaha. haddaba ha sugin saaxiib inuu dibadda kaaga yimaado wax ku bedela adiga.